ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya qorshaha isla xisaabtanka ee tiir-dhaxaadka howlaha xukuumadda ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho xarunta dowladda hoose Xamar iyo wasaaradda maaliyadda si ugu kurgala hanaanka shaqo ee goobahaasi siday u socdaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeerkiisa ku bilaabay dekedda Muqdisho halkaas oo kulamo kula qaatay maamulka dekedda si ugu xog wareysto isbedelada shaqo ee ku yimid howlaha dekedda si loo horumariyo howlaha dekedda isla markaana looga dhabeeyo fududeynta adeegyada shacabka Soomaaliyeed ee u haysta dekeddu. maamulka dekedda ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya u sheegay in looga baahan yahay inay dardargeliyaan horumarinta adeegyada ay dekeddu u hayso bulshada isla markaana ay ka dheeraadaan wax kasta oo keeni kara tuhun la xiriira maamul xumo iyo musuqmaasuq. halkan waa xarunta dowladda hoose Xamar. ra'iisul wasaare Khayre oo kormeer shaqo ku yimid ayaa kulan muhiim ah kula qaatay xubnaha maamulka gobolka Banaadir oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar. kulanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya la qaatay maamulka gobolka Banaadir ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta amniga caasimadda, horumarinta bilicda iyo nadaafadda iyo fududeynta adeegyada bulshada ku nool magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa faray maamulka gobolka Banaadir in la dardargeliyo howlaha bilicda iyo nadaafadda caasimadda isla markaana ay laga maarmaan tahay toddobaadka soo socda ay shacabku dareemaan isbedel dhinacyadaasi ku yimid si loo helo magaalo bilic iyo nadaafad leh. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay wasaaradda maaliyadda isagoo halkaasi kulan isxog wareysi ah kula qaatay maamulka wasaaradda maaliyadda uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaluuco waxauna kala hadlay dardargelinta howlaha wasaaraddu ugu igman tahay qaranka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.